الرحيم وعشيردين امتحانها aynu uga hadlaynay luqadda loo yaqaano SQL qaybtiisii saddexaad qaybteenii hore waxaan uga soo hadalnay sida softwareka aan kombiyuutarka loogu shubto qaybtan saddexaad waxaynu uga hadli doonaa sida softwarekaas loo soo kiciyo serverkii loogu connect gareeyo iyo sida database loo abuuro databaseka sidii aan u baahano magac aynu ku bedeli karno haddaan u baahanana aynu iska delete garayn karno start menuga markaad ku dhufatid ood SQL server aad raadisid waxa kusoo baxaya folder sidaan oo kale ah markaad right click markaad ku siiso folderkaas waxa kusoo baxaya qeybahan qaybtaas ayaad ku dhufanaysaa haddii aad u baahatidna waxaad dhigi kartaa taski barka oo kuu fududaanaysa inaad click kusoo siisid markaad ku dhufatid uu kusoo kaco wuxuu ku leeyahay serverka inaad ku xirantid ayuu ku weydiinayaa laba qayb ayaan loogu xirmaa serverka Windows Authentication iyo SQL Server Authentication Windows Authentication ayaan isticmaali doonaa oo simple asaga waxaa kaaga filan si server type-ka database engine-ka ayaa default ahaan kuu dooran server name-kuna waa system-kaaga magaciisa haddii server name-kaada aad ilowdid simply dot ayaa kaaga filan ayada ayaa serverkaada kugu xirayso haddii SQL Authentication aad isticmaalaysid oo ay ka duwan tahay oo username iyo password ayaa lagaaga baahan yahay haddii marka aad hilmaamto username-ka ama password-kii waa inaad mar kale aad kusoo shubataa SQL-ka adigoo ka taxadaraya username-ka iyo password-ka configuration-kooda markii aan soo galno shaashadda noo soo baxdo serverka inaan connected ku dhahno waxaa noo soo baxayo environment weyn qaybo muhiimka hadda aan ka hadalno new query editor oo kale waxaa loogu talagalay editor cusub inaad kuu furto oo hadhow SQL commands-kaada aad ku qortid haddii aad inaad rangareedo u baahan tahay waxaad ku dhufanaysaa execute haddii aad rabto inaad save garaysato query aad qorto waxaad ku dhufan kartaa meeshaas ku save garayn kartid file hadhowdii loo yaqaano .sql hadhowdiina gadaal dambe haddaad uga baahatid filekaas waad soo rangarayn kartaa qaybtan kale drop downkan waxaad ka dooranaysaa databaseka markaas aad rabto inaad ku shaqaysid windowgan sidaan ayuu soo noqonayaa oo qaybtan waxaa loo yaqaanaa query SQL query window buttonka execute halkaas ayuu noo yaalaa new query editorkii waa kan qaybtan waa qaybtii hadhowda queryga aad qorta aad ka save garay lahayd halkanna databaseka ayaad ka dooranaysaa qaybtan waxaa loo yaqaanaa results window oo wuxuu ku sheegayaa inta rows la soo celiyey iyo execution timeka uu qaatay iyo databaseka la isticmaalay iyo serverka markaas la isticmaalay qaybtan waxaa loo yaqaanaa object explorer wuxuu ku tusayaa databaseskaada iyo objectska ku jiro tables iyo store procedures iyo columnska tableskaas waxyaalaha dhan waad ku dhex wareegi kartaa haddii marka aan usii guda galno qaybta object explorer hadda ayaan kasoo hadalnay waa qaybta databaseki tableskiisa iyo columnskii iyo objects kale ay ku jiraan qaybtan query window loo yaqaana meesha query aad ku qoraysay qaybtanna waa qaybta resultska oo wuxuu ku tusayaa resultiga soo baxay wuxuu kaloo si dheeri ahaan kuu sii tusayaa timeka ay qaadatay iyo inta row oo la soo celiyey iyo databaseka la isticmaalay iyo serverka markaas lagu jiro oo laga shaqeynayo database markaad abuuri rabto laba qaab loo abuuraa inaad query qortid iyo inaad isticmaashid right click adoo isticmaalaya graphic user interface-ka query markaad qoraysid waxaad leedahay create keywordkaas ayaad isticmaalaysaa database intan waxaad ku sheegaysaa database nameka markii aad sameynaysid waa in aad ka fikirtaa maskaxda ku haysaa identifier roleskii waa inuusan number ka bilaaban waa inuu magaca uu leeyahay wax faa'iida oo ku tusinayo waxa markaas oo lagu shubi rabo meeshan maximumna waa inuu noqdaa magacaaga iska tiran badan 128 characters hadda si tijaab ahaan waxaan u create garaynaynaa database loo yaqaano test database si aad u ogaatay marka in databasekaas la create gareeyay in kale waxaad tegaydaa object explorer qaybtaas ayaad refresh ka leedahay databaseki inuu meesha soo galay iyo in kale si aad u ogaatay marka databaseska SQL server connectionka markaas aad ku jirtid meeqa database ayaa ku jirta si aad u ogaatid waxaad isticmaali kartaa querygan oo kuu fududaanaya inaad ogaatid
databaseska meeshaas ku jiro select name from master.system.databases order by name ama execute store procedure-ka inaad execute garaysid sidoo kale asna waa la mid oo wuxuu ku sheegayaa inta database oo markaas ku jiro systemkaaga. qaabka labaad oo loo abuuro databaseka waa inaad tagtid object explorer qayb database aad kasii tagtid right click new database databaseka magaciisa aad sheegtid okay aad dhahdid hello refresh markaad dhahdo marka databaseki sample db oo kusoo baxay. haddii aan rabno marka database inaan drop garayno waxaan isticmaalaynaa keywordkan loo yaqaano drop databaseka magaciisa qaybtan if exists conditionkan loo yaqaano waa 2016 iyo wixii ka dambeeyey SQL server ayaa isticmaalaan oo waxay jeegaraynayaan in databasekan uu jiray in kale hadduusan jirin waxba lama fulinayo haddii uu jirana waxa waaye waa la drop garaynayaa oo error hadhowda ma kugu imaanayo. qaabka labaad loo drop gareeyo databaseka waa inaad right click dhahdid delete aad iska dhahdid connectionka markaas existing connectionska inaad meeshaas jeeg aad saartid connectionka jiro oo hadhowda kaa xiro haddii kale ma delete garaysmayo databasekaas. si aan u ogaano marka in la tiray in kale waad tegaysaa object explorer-kaada refresh aad leedahay qaybta marka source query-ga inaad ogaato markaad rabtid databaseka query-giisa qaabka loo abuuray iyo waxaas waxaad dhihi kartaa right click database korkiisa script database as create to new query editor window waxaan arkaynaa database marka query-gaas waa save garaysan kartaa. databasekeena marka haddii magacii qaldan aan u bixin oo kale waa ka bedeli karnaa waxaa leenahay alter databaseka magaciisa modify name space ayaa u dhexeeya meeshaas marka equal new nameka inta ku sheegaysaa waxaan arki doonaa qaabka uu noqon doono mid kasta. haddii aan SQL keena tagno marka hore soo kaco connection sidan ayuu ku leeyahay annaga hadda waxaa isticmaalaynaa marka Windows authentication mode inta server nameka ayaa noo yaalo intana server typekii waa database engine. haddii marka server nameka aad ilowdo waxaa kaaga filan inaad isticmaashid dot haddii aan isticmaalno aan ku baraaweyno connect aan dhahno waa kana databasekeena waa noo connect garaysmay new query editor window waa meesha haddaan kasoo hadlayna markaad rabtid inaad query cusub aad qortid meeshan ayuu ku keenayaa. qaybtan waa qaybta laga save garaynayo query-ga aad qortid qaybtana markii aad query qortid waa meesha execute aad ka dhihi lahayd intana object explorer waan kasoo hadalnay marka hadda waxaan sameynaynaa inaan databaseki test db aan abuurno create test database create database test database haddii aan execute dhahno qaybtan query result-ga oo noo sheegay in la fuliyey. haddii marka intaan imaano databaseska refresh aan dhahno test database inta ayay noogu jirtaa. qaab kaloo loo abuuro ayaa jiro marka waxaan sameyn karnaa right click new databaseka magaciisa sample database 2 sample database hore ugu jirta laakiin sample database 2 ayaan abuurnay magaca ayaan qaladnaa hadhowda marka magacaas inaan bedelno ayaa nagala rabaa. si magacaas aan u bedelno waxaan sameynaynaa alter database databaseka magaciisa ayaa sheegaysaa waa magaca qaldan sample db2 modify ayaad leedahay magacii markaad ku bedeli leedahay ayaa sheegaysaa name is equal to magacaan ku bedelayna waxaa waaye midka saxda ah sample database 2. haddii aan rangarayno query-gan sida ayuu noogu soo baxaya inta hadda sample meesha aad databaseka markaad dul tagno refresh aan dhahno sample db2 waxaan sameyn karnaa inaan ogaano how many database ayaa serverkan aan connectionkiisa ku xirannahay ku jirto inaad dhahid execute store procedure-ka loo yaqaano databases how many database ayaa meeshan ku jirto waan ogaa karnaa intaan 11 database ayaa meesha noogu jiro. waxaa kaloo ku ogaa kartaa inaad dhahid select name
from master.system.databases. ayadan waxay kuu sheegaysaa inaad ogaatid magaca inta database oo meeshaas ku jirto 21 database waa same. inta marka wuxuu kuu sheegayaa how many rows la soo celiyay waa 11 row, timekay qaadatay iyo databaseka laga soo aqriyay iyo connectionka markaas ku jirno. haddii aan u baahno marka databaseki inaan magaca si kale ugu bedeli karta ayaa jirto. right click haddii aad dhahid rename aad dhahid magaca saas ugu bedeli kartaa. databaseka marka inaan drop gareyno ayaa rabnaa, meesha ka tuurno ka hadda abuurnay drop database sample db2. databasekan sample db2 na meesha ka baxda ayaa loo baahan yahay. haddii aan refresh gareyno meesha way ka baxday. test db gaas oo kaleeto haddii aan tuuro rabno right click aan leenahay, qaabka loo tuuro waayo delete ayaad ku qabanaysaa. inta waxaad leedahay marka close existing connectionska jira iga close garey. waagan databaseki marka meesha uu ka baxay. haddii marka aad u baahato querygan oo kale inaad save gareysato si hadhowda aad usoo kicdid, save ayaad leedahay, waxaad noo dhigtaa desktopka, waxaa ku qortaa SQL query 3 save. hadda marka haddii aad iska cancelo oon dhaho open, desktopka ayaan ku save gareynay SQL query 3 waa kana querygani sidiisa ayuu soo baxayaa. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.